Hang on to your seats. Everything is about to change. صباح وناكسن صباح وناكسن وعن ربع قفك السنشيو مستقبلك وحسن قلعة صوبته ما أنتوا أمالي فرحت لي أنا وحرة سيدابي وكلنا نقضوا أنا وحرة بطلقينا مضحكنا أنا وحرة وين نختار نقضوا أنا وحرة وين بوليس نقضوا عابا هذا أي محاو فديسا يستقبه عدنا محرتا كلنا نقرأ عين وباراني عسي وناكسن وهرتو ويناوبه دمانتي وإربتي وهليسين أنا هو با قفك السنيديسي النسيب كيسا لجراه وأقبل معه ترتيبته ازدجيله أنا وحنا بانا كابتن بحنا نقضوا waddankan hindiya waxyaabo badan ayaa ka jira sida dil dhac boob iyo kursi balse aniga waxaan diyaar u ahay waxaasoo idil inaan soo cirib tiro ganacsatadaas oo ka ganacsata kontrabaanka iyo waxyaabaha sharci darrada ah dhammaan dalka inta ka shaqaysana intooda badan waxa ay qabtaan shaqo aanan ku habboonayn waddankan hindiya dhaqaalihiisa waxaa hoos u dhigaya dadka ka ganacsada draagiska وكا قاضي صباح ونكسن ونكسن صباح ونكسن طلي horta magaalada markii joogtada ciil ama ku qabaa ciilkaas waxa waa iska dhan noqona ku qabay sababtoo meeshaan ku dhahay booliska oo laga tixgeliya meeshaan sharci darowga ma waa ku dhahay boolisnimo xataa waa nacay dadkaana la yaabanahay boolisnimo ma la tixgeliya dambiilayaasha xabsiga ayaan soo dhaxlaynaa madaxdan xabsiga ay ka sii deysaa laakiin adiga nasiib ayaa arrintaadu waa hadda gurigaada adoo nabad iimaanays aan ku noqonays waa way mid wanaagsan horta waxaa fiican qofka askariga markiis wax qabahayo si daacadalsi u qabto sababtoo ah qofka wadaniga waxaa la rabaa wadanimada in iska dhabeeyo laqdaba iyo tuugnimo inaad sameeya maahan anaku ogna booliskeenna lacag la ku shaqeeyaan laakiin saas inay sameeya maba fiicno wadaninimada ma ku jirta in lacag la kala qaato laluusha lagu shaqeeyo laakiin daacadnimo lagu shaqeeyaa jirta filimkan waxaa lagu turjumay رجا كيبل تي في muqdisho horta dhammaan marti sharafta waa mahadsantihiin meeshaan waxaa suu imaada dad fara badan dad lacag leha jooga krishna barsaada qaybka ah krishna barsaad nin hindi waa lacagtiis leeyahan lacag fara badan waa qof kastana horumarkiis waa jecel yahay marka hore ila soo dhaweeya krishna barsaad masraxa ina soo koro markaan krishna barsaad shahaado sharafaa la guddoonsiinayaa aad iyo aad baad u mahadsantiin aad iyo aad hooyadu carruurteedu marnaba iskama fogayso wax walbana way u samaysaa ilaa yaraanta ilaa uu ka barbaarayo ubadka sidaasi la mid a ubadkana aad buu u jeceliya hooyadii waddankaagana waa inaad ka soo qaadaa sida hooyadaa oo kale oo aad kalgacayl u muujisaa karti aad lahaataa aad wax ugu qaban karto dalkaaga qof walbana waa inu dalkiisa wax u qabtaa anigu waxaanoo idin igu dhiiriyey waxaan ahay nin hooyadii jecel micnaha nin waddankiisa aad iyo aad u jecel waddankaagana waa sida hooyadaa oo kale waa inaanad jeclaatood mar walba qalbigaaga aanad ka saarin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin maadaama halkan aad timaadeen welibana hadalkayga aad dhegaysateen natiidii maxaa kugu dhacay hataa maxaad sidan ula fadhidaa sheegata أبا أنا وحنا سداي
go-aan qaldan ayaad qaadatay sidaas ayaynu ku fikirayaa aabbo aniga go-aankeyga waad khaldanayd beenataydi sababtoo ah adigu dalkaaga maanad aaminin aabbo adiga waa saxan tahay aniga waddankayga ma aaminsaniba ilaa hadeertaana waxaan ku leeyahay waddankayga ma aaminsan aniga mar walba waxaan ka fikirayaa caafimaadkaaga qofkii ka taxadiri lahaa iyo amnigaaga qofka sugi lahaa oo keliya ayaan ka fikiraa baaba aniga waddankaygana ma aaminsani maymaynataydi inaad duulasho looma baahno dalkani ciidan buu leeyahay burcad waxba igama qaadaysa aniga anna waxaan ku dagaalamayaa waddada xaqa ah ma garanaysa kulley waxaan doonayaa inaan hadafkayga ka miro dhaliyo goor dhowna guul baan ka gaari doonaa waanaad arki doontaa inataydi sugoo daawo oo keliya waxaa halkan ka dhaca inaad cabsataa looma baahna dalkan waa dalkeennii haddaanu dalkayga ka baqno xaggeena joogna laakiin waddanka isku haleyn ma lahan maya inataydi inaan duurjoog ahana marnaba maaha ama dad aanu dul joognaa aabo waa saxanta adiga nafsadaada qofka fikiraysa ayaa loo baahan yahay teeda kale aabo aniga waxaan rabaa qof amnigaaga sugaayo inataydi cidna cidda kale amnigeeda ma damaanad qaadi karto laakiin qof walba dadaalkiisa waddankoo dhan waa qariban yahay aabo maxaa la sameeyahay waddankan isku haleyn ma lahan dadkiisa iyo asagoo dhan buu qariban yahay aabo waxaana wanaagsan adiga waxyaabahan aad sheegaysid oo dhanna maskaxdaada ka bixisa aabo aniga halkanaan joogayaa meelaan halkan uga dhaqaaqaya ma jirto dalkaygaan ku dhimanaya waddani baan ahay ruuxeeba xaggan bay iga baxaysaa haddii kale naftaydu ma garanayaba sidaan ku cafin lahaa anigu been kuuma sheegay nantaydi loof baan ku hay halkan waddankan ma garataa indiyara leeyahy markaanu meelaan uga socday ma jirto kulley go-aanka adigaa iskale sidaa doonto waad samayn kartaa balse aniga qalbigaabay damqanayaba haddii aanan jiraa dalka ka baxay am indian mana laga yaabo indiya inaan dhinac uga baxo waan u dagaalamaya xaqayga dalkayga waddankayga calankayga intaba waan difaacayaa xornimadayda hey dadkan maxay ahaayeen talii burcad waaye sawirada maxay halkan ugu jira maxaa derbiga loogu dheji waaye ii sheeg ayaan ku dhahay talii aad naftirkaa waa cusub tahay haddii meeshan ku cusub tahay waxaa laga yaaba beri inaa isbeddeshid ey aamus annaga dadku way naga cabsadaan sidaas ay tahayna wayna soo siyaartana adigana magacyadeena iyo sawiradeenna ayaa derbiyada ku qarsaa soomaan laakiin maanta taariikh baa kugu dhacaysa halkaana halkayga maxaad qaadi kartaa ii sheeg adigaa kula hadlaya waree boolis ay gacan u qaadaysa soo ma war naga keena meesha soo baxa هو مش معلو تاجي مقرعدين عشان في عنتها وشوعرتني مكان بين لوعي دنبيلها سيدي سبا وحبر يا ملا عقاب مويه يا maxaa jira tali ii sheeg be maxaa kuriyooyis xogaa riiri inaa ku jirtaan dareemaya waxaa kuriyoonay inankaygiio isbatooro noqday weliba saldhigan qabsaday waa tani salaaman
adiga riyadaada run ahaantii waa riyo fog riyo dhow maahanba waxaa ku riyoonaysay wiilkaagii inuu saldhigaan imaado weliba u qabsaday laakiin taas ma suuragelayso macquulna maahan anoo joogo weliba laakiin qalbigaaga ku ducayso oo keliya inay dhacdo wax dhici kara ma baahna waan la socdaaya laakiin riyadaada taliya qaranku ma ahan mid qof keliya uu leeyahay weliba uu leexsanyay teeda kale inankaygu inuu askari noqdaa weliba sarkaala taasi waxay ku xidhantay dadaalkiisa iyo isaga kartadiisa fursad qura haddii uu helo waxaan hubaa inuu darayskan ka soo baxayo waajibaadka loogu aaminay dadka qaar oo darayska iska xidhan oo iska baastaynaya ma hadde oo meelaha iskaga jabaneeya dadka qaar sharafta darayska mama garanayaanba keliya qadada iskaga sugaan meeshana loo soo bariis doontaa walaalka waa ku daarayaa khatar waaya dhuuq adna wadurya adna waa daaraha bushkushka walaalka maxaa kugu dhacay ani qoladoo burcada ayaan jibto waxaan rabaa in liiga celiyo booliska dib sheegtidna soo baxay booliska u dacweyna sabab booliska maxaa laga doonaya sheeg booliska abaamo maya looma baahno boolisku waa daciif waxbana kama qaban kara arrintan idinka looma baahno boolis iyo waxyaabahaas inaad ku laakiin xirtaan anugu maxaa sameeynaa haddii aabbaha oo boolis waxaa iska qaban karin aniga mid ayaan ku hayaa taasoo ah inaan anaga shanteena gacmood wax ugu qabanno nimaysa shantaada kaa reebi sharci kaama reebaa bas laakiin ninkaasee ku aadinaa iyo akhri warqadda adiga video ayaan ka hayaa sharaftaadii karaamada haddaad jeceshahay guriga beerta waa inaad iigu timaadaa midda kale arrintan booliska ku wargelin haddii aad boolis ku wargelisid magaaladu idil way wada qarxaysaa marka waa kuu dignin keligaa ii imo cidnaha soo wadan booliskana ha u sheegin arrinteena okay maya middan mid la qaadan kara iyo mid la aqbali kara toona maahan dufarkaas waa in wax laga qabtaa adigaa ka welweli soco adigana qaybta kala diyaari dhegeysta dhammaanteen si wada jir ayaan u wada shaqaynaynaa waxaana waajib naga saaran yahay inaan sumcaddeena iyo sharafteena aan difaacno sababtoo ah gabadhaa sumcaddeeda ayaa baxar ku jirta okay tixraaca warqaddan iyo sawiradan ayaan tixraacaynaa war unugu mana taqaanaa ganacsado waaweyn baana martaasa adigu waxaa rabtaa dabdhahayna inaad tufsato unuta maa saastaa yeelin fiiri waxaa ku hadlay caddaankaa yeelna leemo toma walaalo waa kuda tong jaarbute usda faarude warsinimada si fiican ii maqlo mar damba khaladkan oo kale ha ku laabanina dadkan rikaataa ku qabsanin waad fahanteen soo ma haddii kale waad mahadsantahay maya tan waajib saarnayd teeda kale bulshada ay gacmaha isqabsatay wax mar qabsatay walba waxaad iga marto calooshiya weynaadka lama qaadi karo ama timaadi durdawa haa adaan ku xiisi waxaan rabaa ani mootada inaanu ducaysid ayno ninkii kale ayaanan ducaynayaa ayoy ninka caanaha gaday xataa makaa fakaynaya waa u caada meeshaas is jooga ogow may waxaas oo may ritig roshan hartaba oo ritig roshan harta ritig roshan waa cawsi may waa ku bariya waxaas waa waaye nin la'aan ma kugu dhacday ani maxaa ii dooqata fiiriba bidaara igu taalan ii jeedid miya waan isku kaadhibaya iga aamu iskeedib dhegayso naag walba ninkeeda ayaa ridka roosh u noqdaa marka ay saas miya saas hadday tahay warkaas dhan inta iska dhaftid macani wixin ku keeni kaali aragaan ku dhahay haddii aragtid waa farxi sugyahay waa kana ujeeda daajir amiin xataa ma haysto maxaa okay ma haysto socdo soo labiso laaluush ma soo qaadatay laaluush ku dhaway maxaa kaa galay adiga aniga askariga wixii rabo soo qaadaha hadduu aabba arka ka war maxaan samaynaynaa aabbaagaan ma soo iga qaadaa dabla la buwaayabe laakiin si waxaas ina samaysa ma ahayn shibka dhaan ku dhahay aabbaaga ana kabtiisa jamaaye shiba لا استغفر الله شمشي مالي كم هيبو تيجي بيتي لا 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 دخل يدعي ابو معن يدعي بس هو دعي سنتي لبكام حكينا يشك وين ميا انا الشغله مركي اللي فيها لالوشا نديبي هذا هو حلوه قاضها لالوشك هذه ما حكى قالي لالوشا ها سوى انا بحيوه فعلي صوت سيدنا وراني قبرت هذا خوا يجي حشون كل هدي يجي حشون بس يا ويلك كل غريغان انا كطلي ادبو تلي انا الله قوه الدي igu jijiidiyasay camal maadaama cigaarka sadoga u tahay cas laaluush qaato haddii kuweys maxkamadda way caddeene oo shaqadiisna sii wato oo faraha aa kala baxdin ma fahmino maxkamaddana meeshaasay ku xiran tahay وب معليش سوا نفسك سؤال وكوكو اوف تبغى دري
hal kooba igu filan maxaa jira ya akhay wiilkayga adiga laguguma talagelin ayeeyo iyo aabe iyo igaar kale ayaa loogu talagalay marka u geeyay jooga ka dhacaan cumriga allah usoo kuusa koob kafeeya maad intaasoo dhan kula maqnayd maanta dhawaan goobsan ani ma la soo daahin gabirtaada la soo daahday kaale lamada gacan kidin iyo kuhaystaa see yeeloosaa ii sheeg kana waa la cabaya kana waa laga dabageynaya haddii kaas cabaysa kan ka dabageeyso iska dhaaftido kafee lama cabtido inaad dhimatidna waa diidiye seebay waa noo joogta haa xishoomaya adiga aabbahaaga adiga meesha markaad masaxdo maxay dadku ugu dhahaya idaya maxaa jira aabbahaaga boqor ma idhigi faras ma saar kirib masilah aamus aaba uu hurtaaya ranjam daram ma joogaan ku dhahay koo kale waay dariskayna waa meelaas karaadi ba aamus haaye ad shaqaalaatee ma lagugu talagelin ma kaste ad shaqaalaatee baxninkii ugu wac ay ani ma shaqaalay wari aamus aabo inaad inantiisa qabtay xataa ha u sheegin saas miya hay bax u wac haye aab marti ayaa kuu timaaday waa ku salaame maalin kasta meehan qashin iyo waxay kusoo shubaan dadkaana intay ku kakaadiyaan yaa ugu doodayna unaka noo sheegba maku dhihino aniga boor ku dhaji dadkaas raadisoo maxaan jira caajab boor maku dhajin miya adiga waa ku dhaji xaashi weynan ku dhaji wilib waxaa ugu horeeya koojeeki miskiinkaan wax kaaliya maa beeb edeb ay waaye hadda kadib hadday imaadaan garaac oo lafaha ka jijibi inta kalena anaa ka jibaaba cimrigan usoo kuusaa usoo kuusaan ku dhahaysa dhaqso hadeeyaan ku dhahay nin kale maaha ani waa kasaa ninka kaadiya see ku kasii adig nin dadoo maa dilaysaa wariyaa maxaan kasi استغفر عني واي ninka waa kasaa bidaar isdhaxda ku leeyahay bidaar dadkana leeyin kaligiis maa leh adiga maxaa kaa galay ii sheeg may wax miiga gelin هاي اسكت لا لا كان انا سيدا وافيري هذه كالي وحما تيري علاك على وحمدين وحمدين مي هذه هذه قال له وين انك ماشي كوكادي او وحوقي وعيق فقط مرمر وعسكيك الشبع هذه وين ها هاد عدله ماشي يا قطر واحد كسد وها بكرنا اهم الصديق ayna nujiga xirno niqaama xirno mooyaan wax kale ma hayna miya aamu niyow dhakaala xirno nukiana kasa isheeg bixirna di sameyn xitaa cidna ogaayis male war aamu sadiga osh qabo ma reexna inaga daa dhaqso war anigu kaliya soo raac soo soco way aamu ha meel daran bay ku dhacdo la 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 ay tagtito ya ya يا حقو سعره asraba dhankeena يا taageer adiga maxaa kuugu dhacana انتي واس اركنو tuug يا مايا 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 tuug askariya tuug انا توق مني يا وشك انا توق مني اين وقت والله قاعد مسيرنا وعيا ولا يا ما قبطتي ها ما تيدك هذا ديك بدبدان انا يدك ما بكلا بحين هذا دواء ويا باكي كان معنا كان نقول ها عربه كبر 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 هذه دراو ما عندك صوتي كال هذه انت وفكرت هاي انا ما ديك فكرت هذه ما شاتك ماسك نقطك ها انتك بحسانه انا كيدك ما كلا بحين هذا دوايد هاي ميل سعتان مالها ها دقصده او هذيك اسكت يا دنا هذيك ابو وقاعدنا وايك تك انت كبحانه يا او ايه وقتوغينا يا انوكا عدو برو على الكوس كان اخو هيسا هيسو في عنا اسكو قادا هيسو قاد وراوي قطراتي وصوحي ايه هاي الباك معرفونا ها هذيك تك بحساي بس لا كل وقت كبح ما سميه يا صحيح ما المروح صار معاه ايش يقول بس وجي سؤال ارك وجي ولا ارك سؤال لوها قال جعل ماكو كل هذيك توك قرحنا الله يا بنانو انا ما جعل توك واي بحس بوليس توك
waa iga fakadeen kuwan Garbati Bappa! Hoya! waa salaamantii lagaa qaaday Aha. faraxsantaade afka maciisa soo maajanta oo adigana alisi mujadido ha cumriga allah ku soo kursay waa cunana dhammaanteena aawe dadka kale xaggee aad inii sheeg banaanka leema fiirsido ama ani diib anaa u cunay okay dhib malan anigaa Aye. siina idinka sii wato insha hey kaale adiga calool weynaad keentay caanalo aadka iska dhaafniyo aha oo adigana kaale madaxda meesha adiga miyaana ha aniga waay soo hadal aniga boombaleygaan ku dhedheelayaa leega xaday oo afduub waay miya arrinta meeqa jir waa boombalaaga ii sheeg 10 sano ayuu jiraa boombaleyga aniga ha aniga waa sii baxaya waa baxe hay bombalaas aniga nasiibkayga ayaa ku xiran inaad ii keenta ayaan u baahanahay sabab aan ku keena maxamed aniga waan jeclahay bombalaas nasiibkayga ayaa ku waan xiran og yahay waan rabaa inaan in helo gabdhi isku halle waay 10 bisha waa inaan helo aniga nasiibkayga ayaa ku xiran waa maalinta interviewga leega qaadayo okay haddii aad aragtid qof wada isoo wac nambarkeyga aan ku siinaa nambarkeyga qoro 30 21 eber 6 soddon labaatan koo eber lix Ha, okay anaa ku soo xasuusnaa, wacay okay Ku celceli. soddon labaatan iyo koo eber lix soddon labaatan iyo koo eber lix waa inaan si fiican u fadhiyaa nambarkaas ha joogso bajaaje ha tuuga waa helo taliya inay soo raxda ayaan u baahanahay dhaqso hay sug aan ku raacay adiga xoog u socono Intee u soctaadi? adiga bajaajka xoog u wado keliya inuu iga socdo uma baahni tuugaas aniga ha jooji adiga meeshan halkan istaag 20 rubi oo keliya ayaad leedahay Lama rumus iyo laakiin waa yartay bay. 20 gaad rubis oo keliya qaado idhaaf oo keliya walla koo yartay. maxay adiga gashaaniga ها تلي gabadhii waayno gabadhii kuusoo dacwoonaysa tuugi waa haya Inta jooga? wuxuu joogaa xaafadda bulgaariya Haye, meesha hadda sii ima. weymaw inuu iga fakado uma baahni si dhaqso lagu soo cararo keliya ها soo soco adiga gurigeyga ahaa meeshaan adi soo soco haye waa soo soo socda soco keliya tuuga meeshaan uu joogaa tuuga tuuga milik soo galiya la sheego haya naagtay adiga anaa tuuga soo raadinayo waa haya tuuga waa kana yaabay adiga maahan iga yaabay tuuga ina raadiba tuug ayaa guriga soo galaa ay ma wadaha dhinaca magareeliya hay waa igu tiimo hay ibane abi ninkaygi tuug ayaa soo galanayay anigu waan baqaya madaxa ay xanuun tuug hadaan maqlo sidee madaxa mee daabkaaga soo kharsa baxaan ku dhahay seeba inta tuuga xadin bax ha dahabkaygi sidee yaala xagee soo khariyaan ku dhahay baxna ana kugu tale inankaygi tuug ayaa soo galay anigu waan baqaya maxaa tuuga u tagi aroosne waa ku tuuga waa ilima ku gawoodiye bax inteen ka qabaha maxaa adigana guriga maxaa ka dhex samaynaysaa hooyo gabadhan guriga soo gashay ها gabadhaydu tuug waay may micnahaydu tuug ayaa guriga soo galay yaa tuuga adiga kaale ninkayga ma waalatana gabadhan guriga dhan ku wareegsan samay tuug leetaa iyada leh ida tuug mee tuugay raadiyo soo soo hay adaa ninkaaga aad tiri macnaha tuug iska dhig guriga soo gal fikraddaas oo ogaay aniga ka artiista taa adiga tuug ma jiraan ku dhahay adiga ninkaaga waay waa fikrad wanaagsan hadda kadib waan ku dhaqaaqaya aniga taas maa ku dhaqaaqay codka nin camal ama iislay tuugtaysna cawdan waaba ka shakiiba aniga kastuumayaalkay aruur soo saa ma leha ka baxde nin aniga khatarsan maba jiraan ku dhahay hooshii la diro laablaab lama jirto toosan qabaa toos maxaa waa dhulkan kal dheer yaa qoftaan dii aragta bis waa sheekada dhan baxari ku jirtaa marka inaan dhuunta leebahay ya ha tuuga waa kana tuuga aabi waa kana war tuug bala bursay sugo soo dhaweey tuug shay abkaali anigaan arkay tuuga inta ayuu jooga Inta ma jooga? haye kaali sug adan inta aadina soo haye soo baxna ha inta ka raadinaynay ها وابكو هيا ما تيجي ما بحكي يا جابر ku cilnaa aaw familki waa kana tuug aaw askari waa kana waa haya ma aniga adiga sanamteeda ayaan kaa rabaa isi tuug waa kana kaala yimaada adiga ma saano kaliya ayaan ku jukeynaya tuug yaa saaxad ku dhigtay sababta soo qaadatay maxay tahay ha sanamteeda sababta soo qaadatay ii sheeg inaan ogaado ayaan u baahanay adiga ayaa soo qaaday sanamteeda waa kana tuuga waa asaga sanamteeda ninka soo xada waa kana asaga ayaa soo qaatay gabadhiya adiga ma waalatay kan waa wiilkaygi tuug maahan sideed u hadlaysaa kan waa aniga wiilkayga mana ahan inaad burcad ku tilmaanto adigana fikirkaas waad ku qaldan tahay sideed ugu tilmaami kartaa wiilkayga burcad
walaal ku xiro kabaha ku xiro hay horta waxa waaye qalad badanan anigu galay qaladkaasoo ah inaan adiga nolol kugu sii daay muga hore waa kuu digay laakiinse way ku soo laabatay anigaad igu soo laabatay wasiiraha dhihinka ashaalaha dhihin ra-iisul wasaaraha dhihin iyo ka dhan wayga leexleexda adiguse gardaracadaad warkayga ku gudbisay waa eqayaanta qaa'inul waddanna aniga ii noolaamayo waa qasacdaya iga habartay weligayba saasaan haa berigana wayse kaa baxaara xabad samale way iska dulqaaday أنا أقانا وحي سميها عدي أيام بين إذن شيء وأركي دونتي واحد دونتي سميه كنت زيادة يوريكين كرة إذن نماس هذه قدام حد كقبانا سوي شيء نينك يجي على مين تنسميه على مين تو كلا يعني نينك نيجي علي نينكي نينك قدو ساقلي أنا نما مصوع سكريا نعلا كوتا على الوين كنا شوف موت وتا كالي أنا كيف كوسلي ذي هاي كالي بعافية كالي وريا كالي يعني عمودر أو كبريا أو ماي جناس أو كبريا مرت نكتير خشخشاني ميا مرت مقشاطة أو كبريا وكده بقى كده يا محسن ويا كان ايوه قشقش هذا ها جوك باري جوك أنا نكو أدلة هاي ما يدلي يا أخي أذيك إنا سانجيس وتهمهوجين أنا بروي حكا بلاو تقدر كاغا لغو عليها شغلنا وسوق جلسة كعبسني يا أنا جيت جوجو لمبو إمادي نينا يجي سهر بحوا واجي هاي له نين كان معسده شغل كسونقة شغل دين كسونقة وساك بعب بلان واي أنا بنان كان وديك نين كان دولة تاي فرصة واي كفائدة سابو أنا بوليس أنا متوري أنا كي هاي دركان عدي وارك أوكي مو دركار توري به هذا مو كوسا شيرة يا أنا شير أوريا كالي دركان من أخي ميا هذه أنا جو حنا من هنا نضرب هنا مو معنا نمرين بوا من السكت أنت واي مو باني ميها سيد هوري ما يملوسا دكتور كذا وأوريا فاربوتي أذوقا هو إيبوتي لكن ما تمي إيبوتي هاي وكل خبر هذا وكل مجوجة وحكومة مرجع نكتيا تسير ونكويلا سوء حاجتك سوء إماوك بعد سلوط إيسار سوء عنقوده عسكري دا عدن هاي دي باورك دي نيانيور كالي هاي سعمل اسكوري وريجي كالي كافي إيه كين انت كإما هاي نقصو يعني سمان تاكو دوري يعني بلوني يجري يجي عامس آية دي كعرسة هبتي هام دي والله دخان يدي هذه نسبة لست أرد نركع لك حتى بافك فريسو صح هو يا أبو على كوتال هاي سلام aniga aabaha uma sheegin ba adigina tuug wax iga xalaata aabaha indiis waxa ka muuqda daacadnimo familkaaga dhanna waa daacadyaal adiga laakiin waxa tahay qaa'inka ugu weyn ee gurigaas tuuga xaafadana adiga leeba waayo cid kale ma baahanbo adiga waxa isku malaysaa laakiin inaad aqli low tahay adiga warka badan inaad jeesay kuna aabaha waa inaan kuu sheego aniga maya suurtagal maan midaas mana aqbali karaan aabben adnaa shoo khalad nakeen hooyaday maxaa sameeya hooyaday ujeeda hooyo aamus waa ku tuuga walaal walaal noqo ha ii sheegin bis hooyaday adiga aabbaysi uma tigi maya hooyaday maya bis waa ku bariya hooyaday ha ii sheegin oo keliya waya mootada soo fur marka hore maya ma fuule mootada waa diidda soo maa waya hooyo maya waxaad rabtid waa sameynaa raalaha filimkan waxaa lagu turjumay raja cable tv muqdisho gabdhaha sanadkan waa halaabanba wiilashiina wadar raacaan ee maroosa sheekadood wax laga soo biyayna ma laha ها wax kasta hooyooyinkooda abooyinkooda ayaa ka dambe raali ugu yihiin adiga halkan maxaad iigu celisana aniga interviewgu way dhaafaya adiga waxaad ka fikiraysaa bambalahaagii soo mahante okay waa kaas xaga fiiri adiga waad mahadsan tahay maama waa ku salaam saaxiibka runtii adi shaqo fiican aa qabatay boolisku wax ay sanooyinka hor ay qaban waayeen aa adi qabat ma aqaan waxaan kugu mahad celiyahay qatara saataan ku okay duceyso bal horta marka maasalaame adiga maxaad ku fikiraysa ii sheeg bal koley aniga waxaan ka fikirayay inaan garab ku siiyo maadaama maanta maalintii afterfield ay tahay hadlaysa ma fahmooy aniga maxaa dhacay maxaad fahmi weyn hadalkayga meel ayuu leeyahay koley inaad dareemi kartana waa ila tahay iska daa laakiin adiga waxaan waxba kama fahmaysa okay okay iga raali noqo adiga laakiin hadalkaaga inaan fahmayno keliya aan ku sheegaya okay
ودوه هذه run ahaantii aniga aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dalkeena maalgashi ku samayso taasna farxaddeeda mid la soo koobi kara maahan wax walba ay ahaataa waan kugu faanaa aniga هذا واسطي هذه دوه baagti فديسن هذا يورا وسيرو سيدتي هاي xaaladda ayada meel dhex ayaad maraysaa teeda kale aniga haddaan awoodi lahaa waxaanoo idin inaan qabto waan qaba lahaa balse aniga awooddeeda ma leh awoodda keliya waa in dhaqaale la helaa anina dhaqaale fara badan ma hayo dhibaatadana ما تاسوع وين ما واكست ولا سبين كرا دباتنا ملان لكن أريد أعرف كم يمكن أن يجري تاسو أبرعد burcadda dhibaatadooda ayaga way soo laalaabatay in badan كان بالفعل هو بالفعل فلاشن وفلاشي عن كسر دياري قلدي كتربان كيبينسي بل يدبد بوحي هذا قلت قلب بالعرق أضو وادد إلا بعدها وحول بقى ياكو عد وحلو باي ودك اللي غلطه أنا حقيقة واحد دنيا dadka in waddanka laga qabto oo dadka laga dhex saaro taasi ma la samayn karaa talow waxaa kaloo u baahanahay bulshada cudur bay ku yihiin in laga qabto wax walba waa la sameynaa wax walbaad ugu baahan tahay dhanka dawladda waa helaysaa waxa weeye wax walba in laga baaraan dego qorshaan ugu talagalay moogti wax walba lagu diyaarinay waxaan doonayaa in wax walba sida ugu habboon lagu qabto oo si fiican wax walba loo nidaamiyo marka adiguna waxaan doonayaa mudane wasiir inaad garab igu siiso arrinta oo aad igala shaqayso qolooyinka waa diyaar waa sidaa haddaba hadday sidaa tahay wax walba waan isla hagaajinayna aniguna ma doonayo in lablaab uu yimaado wax walba waxaan doonayaa orride inay noqdaan oo sida ugu habboon lagu saxo ma garatay marka waxaan rajaynayaa wax walba sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ku samayn doono adigana garab baan kaasoo doonan doonaa mar walba garabkaaga baahdo anigana wax walba dowladda iga baahato diyaar baan lahay teeda kale aniga waxaan doonayaa hanti badan inaan geliyo saasay tahayna waxaan anigu diidanahay dalka in musuq iyo waxyaabahaas ay meesha ka sii jiraan in waxaasoo idin la bixiyo oo la saaraan u baahanay anugu si dal nadiifa waddan nadiifa awlaad nadiifa dad nadiifa loo helo dee haddii aanan aniga taas samayn bulshadeenna waxay noqonaysaa bulsho wasaqaysan oo mar walba laga faa'iidaysto madaxan la isku guliyo la iskuna diro 24 saacba mana doonayna annaga in lagula danaysto keliya ahaantii adiga waan kugu faanaa anigaba sidoo kale waxaan kaloo doonayaa niyo inaan anigu hagaajiyo magac ahaan dhismo ahaan dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan intaba waayo booliska tayadiisu aad bay u liidataa haddii aanan booliska faraha lala gelin oo dhaqaalada la hagaajin wax ma hagaagayaan waan ku faraxsanahay aad iyo aad aad iyo aad adaa mudan mahadsanid inay sudriga una la sacbaa waa salaamantihiin horta carfaantayda aye oo waan kaa qaaday aniga walaal wax walba waan diyaariyey hadda waxaan rabaa inaan iska sii baashaalo aan baxo waan sii baxayaa marka aqaligaa maatee ahaa abukaataha booliska wax walba adigay kula joogaan oo alway dhammaystiran yihiin anigana ma mudan urku maxaa soo binaa noo sheeg mudan wax walba saaca kara yihiin ها أنا ما حاسمينا وحول بس كنت إننا سمين لكن هو أود وين anigu waxaan balayaa ban haddii aad adinka wax samayn yaaba qofku wax sameeyey maraykanka maa looga yimid ii sheega horta waxaan idin sheegay annaga waxaa muhiim noo ah inaan qorshahayna ku guulaysano oon saa rabno waxyeelno laakiin ninkaas fakamaayo koodkaana muhiima u yahay inaan gacanta ku dhigo waa intii oo dhan aan rabaa inaan maamulo oo ninkaan xariifiya ii joogaan kuure waa hey waa la qabaa क्या हो गया صدق اقصد aabe yaa wax arkay ما yaa wax arkay waryaa ninkaas hiliblaha 2 kiilo hilib ay iga soo qaadsaa هاي انا كان شو خدع saxee maxaa u taagan tahay 2 kiilo taliyaha ayaa u baahan واذن بريا ايش شيء هنا ماشي اللي قلت لي ما عرفتن واذن بريا
maxaa dhacayna war ii sheega garab igu siiya warkaale hilmow meeshaan qofaa lagu dilay haddaad aragtay ii sheeg markhaatina ii noqo baryaa weligee wax ma arkin anaa ku dhahay allama kiil hilib keenaa lagu dhahay taliyaha ku ams dadaa la dil hilibaa cunaysin miyaa waryaa ninka raadiyano dhasada ninka ma aragtay ii sheeg lamada kiil hilib ninkaas la dil lama helayo kiili hiliba qaada adiga gurigaaga iska tag saas hilib maba cunaba aniga hal mar aan barya fursadsi dadka aan wareystay maya aamus waa ku baryaa ninka anaa raadinayo kaalay midaan ku fahansiiyo adiga booliskii arrimahan iyo caddeemaan maxaa ku gelinaya howshan howshaada maan gabreelo miskiinaa tahay gurigaaga iska joog noocee tahayna aabbaha boolis waaye familkaaga o dhan waa boolis adigana xogta booliska inaan gudbiyo ayaa diidan tahay war boolis layn boolisku waxay awood leeyihiin haba yaraatee ma jirto fadlan ha isku halaynin naftaada ka fikir doqonya aabbo aniga xanaaqa ii muujin waxba runtoo keliya ayaan sheegay runta dadka ma dishay way ka nicisaa booliskana awood ma laha muddo 2 sano waxaad fahmi weysa 2 daqiiqa kuma fahmaysid booliska awood ayuu leeyahay booliska wuxuu awood leeyahay haba yaraatee ma jirto maxaa yeele hortooda ayaa wixii la doona lagu samaynayaa waxna kama qaban karaan dadkaas miyaad ii sheegaysaa wax ay qaban karaan haba yaraatee malaan booliska waana abuursaa ka horraysay anigu waxaan ku tusayaa booliska awoodda ay leeyihiin ka leex gabadhayda waa ku baryaa intaas garab igu si oo ninkaas ii sheeg anigaana soo xirayo oo yaa soo xirayo ninkaas burcadka ayaad awoodda aabba inaad soo xirto adiga waxaan iska daa aniga arrinta kuu sheegaya waayahay adiga ayaa soo qabanaya ninkaas waana ku tusayaa awoodda uu booliska leeyahay inakacay soo bax balaayo qoorta gashay aniga fasaxaan leeyahay fasax eegi leen aada asagay u taala wuxuu sameynaya aniga faraha kule ma jiro asagay u taala wuxuu sameynaya kaalaaw tug soo qaba shaarka u geli ninkan awoodda uu booliska leeyahay maanta inaan tuso ayaan rabaa gasho maxaa samee rabtaa ii sheeg boolis meeshaa lagu talgal inta ma aamus booliska muhiimadda ay leeyihiin adiga marna ma garan kartid sababtoo ay baad tahay adaga dhoolatusii wadaa ma fahanti ya xanaaq lee qabale waa kaale qof inaad soo dishidaan misna masaajo lagu samaynayo istaag xaaraanyo istaag soo soco istaag war adiga warqadaad igu xirta meesha warqad adiga noocaaga uma soo qaata aniga war aniga mii taqaanaa ii sheeg bal hal qof oo markhaati kuu naqda ma heshay meesha waa tagtay weliba aamus dilka aniga waan geystay laakiin markhaati ma heysaa maya markhaati maysid booliska oo idil way ka aamuseen maxay taa sababta adiga weli aad caddayn u raadinayso waxaa ku wanaagsan inaad iska aamusta aniga qofkaan ay mataqaani qofkaan adiga waxaad ahaato aniga shaqo kuma lihi inaan ku xereeyaan halkaa hunaad ilib gacanta horaan ugu sheegay laakiin yan imaqlaaye war aniga banraam ayaan la shaqeeyaa wadna ka shalaynaysaa jeebadda ay igu xirto waa ballan sida ciyaalkay ha u booteen ilkowdhe markaan aniga xabsi kumaba geynayo baxsad ayaana kugu dilayaa ogow haddaan kuu sheegay ku dami waxaad leedahay operation ayuu ku jiraa ramjandara ninkaas inaa xerta kuma wanaagsan adiga 4 qof ayaan kuu soo dirayaa ninkaas ku wareeji ee ka soo tag adiga ka soo tag ayaan ku dhahay soona raaligeli taasna waa amarkayga maxaad sugaysaa laakiin taliya ninkan qof ayuu soo dilay misna gurigiisa ayuu yimid xornimadaas xagguu ka keenaya waa ku baryaa ninkan aniga abaalkiisa aan mariyo maya warkayga aan ku dhaayeel okay waaya waa kaa furaya okaade adigoo dariiska booliska ku faanaya ayaad kuleetigayga qabta balse hadda lugahayga ku tirtir shaatiga aad sheegaysa dhaqso ku tirtir waa aniga amarkayga amarka booliska xitaa ma ankan dhaqso ayay dhaqso maxaad sugaysaa dhaqso dhaqso aan ku dhahay aha wax kale uma baahan ya kala gacantaada oo aad kuleetigayga ku qabta haddana waaye may marnaba wiil ma qaadan kara in aabihiis la dulaysto teeda kale adiga aabbay shaatigo keliyaad ka sigta laakiin adiga waa ballan inaan maqaarka kaa siiyo dareeskan awooddiisa si toosoo ma isticmaali kartaan maxaa yeele sharciga ayaa gacmaha idinka xirxiraya laakiin aniga ma jiro sharci xakameynaya aniga i celin kara inaan waxaan doono sameeyo
haddana waxaan doonaa ayaan samaynayaa waanaad arki doontaa tilaabadan qaadi doona bartaadaa ka dhaqaaqay u sheeg biskooladaha dhiba ninkan waa inaad kaxaysataa bixir adiga waxaad ku hanjabaysaa sooma inaad sharciga ka xooggan tahay misena aad awood leedahay awooddaadu waxay gaartay sooma inaad aniga aabbay ku tiraahdo shaatigaaga lugahayga ku tirtay balse maanta haddii ay lagu kugu haraanba waxaad dhihi doontaa aabbay ku tirtay oo kuma sii deyna ha ka cabsan inaad nolosha ku sii raagto dunidan kuma sii daayaysid degdeg ayaad uga tegi doontaa taasna waa balanaan qaaday adiga soomaliya lama xiri karo laakiin xabsi xorriyad la ayaan ku siinaya nolosha muxuu kaaga dhigay ciyaarkeedi يا مقعليها فيلك عارف فيلك شيك انا شيء كبريا قال لي وكبريا وحلوادي شيء هي كان فاربوتي اسوسا run ahaantii mudane aad iyo aad ayaan kugu hambalyanayaa aadan ugu faraxsanaa soo noqoshadaada hindiya aad ku soo laabatay waana ku taageerayaa xaqiiqatan koley wax badan ayaad ina wanaagsan baatay adugu laakiin aniga waxba ma qabto aabbay waxa uu jecel yahay inaan aniga boolis noqdo laakiin aniga boolis maba ka helaba sababtoo ah booliska waa awood daciifa waan awoodaan waxba tiri karin marka mudane micnahaaga maan garanay asaga imtixaanka u baas wuxuu sugayaa shaqo micnaha aniga booliska nyaanyooda daciifka aniga ma jecli mogtaha aabbayaa iga daba wado war sideed ku leedahay boolisku waa daciif booliska kartidooda aad ayay u yar tahay xaqiiqda markaan kuu sheegana amniga dalka maba xasilin karaanba aniga horena war adigu niyaddaad daciif ka tii waxa weeyaan booliska intaad adigoo kale shacabka ay ku dhex jiraan horumarba ma gaarayaanba war waxaa loo baahay inaad taageerto argudmar u noqoto gaashaan u noqoto kartidaada iyo awooddaada aad iyaga ku bixido wakhtigaaga waa inaad iyaga wartaa war waxaa ku wuri waxaa loo baahan yahay waddanka inaad adigu leedahay inaad garataa oo aad dhaqdhaqaaq samaysaa maahae inaad adigu dib u naxdo maaha dib u fadhiso adeer waad mahadsantahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay runaantii waad dhiirigelisay gabadheedu waa caadiga dhiirigelin fiicanna waad siisay runaantii waa waajib saaran waxa weeyaan dhallinyarta inaan waaniyo waan ku qasbanay adeer adiga mar kale waad mahadsan tahay سدح ألف له رام تشندرا haddaa tahana maan iskaga tagaan kuureeryaa naftaada ayuu وكالي أن كوري هذيك سيدا بالصولدة هدان دون إسلا هدرتان أيان كودا ميكرا لكن أنا قد مدس مسامينايو حتى تلفون حاسكا ودر حاسكا كان halo وسدح ألف له رام تشندرا ninkaaga waa nin waddankiisa iyo dadkiisa intaba qiyaanaya waan u malaynaya lacagta laaluushka uu qaadanaya inuu sidaas yeelayso laakiin lacagtaas laaluushka uu qaadanaya wiilkayga mustaqbalkiisa xaggee u dambayn doonta nolosha inuu ku sii noolaado asaga xaq uma lan waa ma aragtaa dil kow ka sii qabo waa xaaskaaga qofka amraysa in adiga lagu dilo war adiga boolis ah ayaad anagana ceebaysay waxaad la shaqaysaa dad dalkooda iyo dadkooda intaba qiyaanayo war mala socotaa bulshada oo dhan waxay leeyihiin xad celiya mootoolaha ahaado baawurlaha ahaado xamaaliha ahaado wax walba hadduu ahaado qofka xad celina ayuu leeyahay laakiin nin boolis ah xad ma lahan adiga oo kale inaad noolaata xukumadi ams wayaa horta mala socotaa aniga inkastoo aan alifla ahay adigoo boolis ah misna isbatoore ah waxaad qaban lahayd ayaan aniga qabanayaa maxaa igu kalifay ma taqaanaa noociina ayaa laluush qaata misna burcadda u daryeela mar walba markaan anaga qabano oon xabsiga aan keenno idinka ayaa baxsad ku tilmaamaya mise maxkamaddana ka sii daynayo middaas anaga mid aan u dulqaadan karna maaha war shicibka mala socotaa mar walba waxay isku haleeyaan booliska waa saaxiibka shicibka markay shicibka seexdaan booliska ayaa u dadaalaya war nala socota aniga wiil markii la ii dhalay waxaa idhi wiilkayga boolis ayaan ka dhigayaa markaan soo barbaariyeyna wiilkayga waxaan idhi boolis ayaan kaa dhigayaa wuxuu yidhi aabba booliska maxay qabtaan bal ii sheeg
wiilkayga wuxuu arkay falxumada idinka aad ku socotaan iyo daacaddarada idinka aad ku socotaan wuu u diiday inuu boolis noqdo intaasoo dhan idinka ayaa u horseeday middaas waa mid idinka lagu dayanayo haddaad wax fiican aad samayn lahaydeen ayaguna wax fiican ayay samayn lahayn wiilkayga rajada aan ka lahaa maanta in aan ka dhiga nin ciidana tartiina ayuu u diiday anigana kalsoonidaasoo dhanna waaba ka baxay sideedaba aniga dharka ciidanka waxaan labistaa muddo 3 maalmood 3daas maalmood ayaa aniga igu wanaagsaneed oo dunida aan u jeclaan jiray balse adiga iima reebin hal maalin xataa inaan gasto igili run ahaantii aabba waxaad i dareensiisa maanta booliiska awoodda uu leeyahay iyo kartida booliiska ku duuga teeda kale maanta wixii ka dambeeya aniga mucaaradku maahi booliiska kamana soo horjeedo waxaana diyaar u ahay inaan nin ciidana noqdo weliba isbatooro buuxo noqon doono igarkii axsanto لكشمي maxaa dhaca ninkayga ii sheeg maxaa dhici lahay waa la doorta igaarkaaga waa la qaatay isbitooras dhaqaa yaani lakashmii barsaad siin lacagtan oo idil wax halkan loo keenay sidii iskuulaad iyo goobo dadweyne wax loogu dhisi lahaa balse anaga inaan ka sii fikirna looma baahno waa inaan anaga faa'iido ka samayna taas ayaa noo wanaagsan inaad fikir fara badan isku daraysa looma baahno haa lacagta anoo nagala qaybiyo maya maya taas socamaysaan kuul waxoogaa baashan in laga fikiray u baahan tahay lacagtan waa badan tahay waqti ku dhumisa looma baahno waa inaad ka faa'iidaysanaa haa lacagtan waa inaan noo kala qaybiya noo kala qaybi ana xamaaliya ahay niidhibaayo waa qaada lacagtana sii boorsada irista tahay sii xamaaliya taamaano iga codeeyo mudane hashtirigia inta guddoonso gacanta haa kaalay kaala horta hashtirig waaba helaba teeda kale horta midaan rabaa inaan idiin sheego aniga waxay khiyaano waa necba halkaana way khiyaanahay teeda kale waxaan idiin sheegaa ninkaas cirada guduudan leh qorshahan oo dhan wuxuu u sameeyey lacagtaan dhan u baxshay in hoteello isbitaallo iyo dhul dawladeed lagu dhiso iskuullo iyo saldhigyo boolisoo kalena waa rabyaa marka horta ninkaas anuka waxawaay haddaan dilno dhibaato weynaa noo imaayso annaga haddaan wax samayno boolisaana bursado isaga laakiin amerikaa daba socoto marka mukaan dilayno caqliyaa lagu dilaa kadib aniga haddaan xabsiga gala xataa waa u qabaan kuur ay anigaa agu kaate waxaan rabaa inaad ka fikirta hadda haddaan xabsiga gala saan ku soo bixi lahay qorshayada hadda ka fikir anna mahanaan kugu sugaa haa soco fikire okay diyaar waay anaa igu ogtahay wax walba anigaa dhammaynaya keliya idinka waxaa soo haleynaysaa soo haleeya idinka waxaan idinka rabaa dhedhel inaysan noqon baashan بالله دقسيت عاد دقسو may adiga hormar ninkayga أنا ما هرمرة haa haa orod adiga دعاء كلام جرت كالي قالكي بست هم بليون كله ما يصير قال قال نحس فرة نحس in booliiska aad ku soo biirto shuruudo fara badan ayaa ka horeeya taasna waa inaad soo buuxisaa adiga ma fududo inaad boolis hore ka naqo waan ogahay wax walbana waan la socdaa ninka booliska waxaa looga baahan yahay in sharciga uu ilaaliyo heerka aqoonta waa inuu b balas ka sarreeya sidoo kale waxaan ogahay jir ahaan iyo maskax ahaan inuu caafimaad qabo sidoo kale waxaan la socdaa inuu yahay nin sharciga aad u yaqaana exercise ahaanna aad ugu fiican teeda kale waxaan ogahay inaan sharciga dhowri waad mahadsantahay anaga taliya haddaan nahay shacab weynaha hindiya waxaan u baahannahay dadna garab siiya goobo caafimaad oo lacag la-aan noo furo goobo waxbarasho na siin kara qofkaas qof kale maaha waa la kishniya barsaab ayaan ku soo dhawaynayaa maslaxa
aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaad ku mahadsantihiin soo dhowayntaad halkan igu soo dhowayseen teeda kale anigu xaqiiqda markaan ka hadlo laba hoyaan leey mid waa tii runta ii dhashay midna waa tii dalka hindiya dalkeenna waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo la cerceerayo kuwaasoon innagoo qura aannu ka samata bixin karno waxaana ka mid ah burcadda iyo jabhadahan burcadda annaga ayay nagu dhex beerantay jabhadahana xuduudaha ayay nooga soo gudbeen sida kashmiir haddaba si aan annagu uga gudubno waxaa qasaba inaan annagu gacmaha isqabsanno oo aan aayaha iyaga ka wada hadalno oonu samaysanno wax walba oo horumara waxaana sidoo kale waajib ah in aanan ninka hindiyaanka aan lagu eegin hadda mabda' uu haysto balse lagu qiimeeyo waddaniyadda iyo inuu yahay muwaadin indiyaana intaas waa inta ugu habboon waxa weeye haddaad soo dhowaataan waad dhimanaysaan iminkaba hadda ninkana hadilina dib marka hore su'aal tartiib tartiib quyar biskooladda hoos u dhig war wax waa la xallin karaya ha la heshiiyo maya bistoolad marka hore hoos u dhig waryaha isdilna bistooladda hoos u dhig shaqadan kuu diro waa inaan qabato adiga okay waay maxaad sugaysaa aniga waxa weeye ma oggolaanayno war markii hore bistooladda hoos u deji ma dhacaysa waa kuur waryaa ha isdilin haddii kale bistoolad baan kugu dhufanaya hadda sacad maysa baan idhi waan dilayaa haddaad tallaabo soo qaaddaa wuu dhimanayaa hadda silaaliya baa war waxaanu dhaafayna male gebigiinna waanu idbaabiinayna ninkannu ajashaanu dhaafinayna adeer waanu dilaynaa halkiinna aan noo soo dhaafina bisdaya bisdaha loo waayay bartiinaa jooga hubka dhig waa kutuugaa taliya ninkaan dikal wasiirkas dilaa waa kutuugaa dhig ya khay hadal aadaxsan diidanno dadka noocan oo kalaa baa dadka ku ciyaaraya oo balaayada iyo masiibada ka dhex beeraya waxa weeyaan burcad waxaa loo baahan yahay in layska qabto haddaanan layska qaban qowmiyo badan bay madaxa soo gelinaya waxa weeyaan inaad baqataan maaha awood baad leedihin qofku isdifaaci karaya karti buu leeyahay waya diyaar waad ka jirta meeshan ya hadal la'aada igida abo filimkan waxaa lagu turjumay raja cable tv muqdisho abo waxba kuma gaaraya abo anigaa garabkaaga taagan anigaa ku badbaadinaya anigaa isbitaalku keena sida ku dhaqsiyaa badan weliba maya isbitaal malaga gaaraya arkay bisoali keli laakiin falkan waxaa ka dambeeya ninkan ganshaala isku sheegooyi waaya si waay ooshan khabya ugu tegin igarkii ugu tegin khabya igarkii abo maya waa balan anigaa dhammaystira laakiin adiga waa inaan isbitaalku geeya maya gabi lakashmii krishna barsaad si lama filaana ayuu booliska gacantiisa ugu baxay weliba si shil ah marka aad baan ugu xunnaa isagana waxaa nin aad iyo aad u wanaagsan oo dalkan u yimid inuu maalgashi wanaagsan ku sameeyo waan ka xunnaa wixii dhacay wax walbana raalgelin baan ka bixinaynaa ninkaasa u jeedaa nin wanaagsan ayuu ahaa wuxuu dalkiisa u imaaday sidii dadkiisa wax uu qaban lahaa halkan wuxuu rabay iskuulaad iyo goobo waxbarasho inuu ka dhiso si uu dadka masaakiinta ah waxbarasho ugu sameeyo
war dib nooga baxa cid halkan u soo dhowaan karta haba yaraatee mala qofkii dhankayga u soo dhowaada waxa ogaanaya inaan gubay victoria qofii soo dabageli kara male lakishmii krishnaa barsaad ayaa magaalada lagu dilay halka suuryaan oo ka baxsaday gacanta booliiska lama oga ilaa hadda meeshuu jaaniya cirib dhigay suuryaa maxaad aaminsantaha waa guulaysanad maa la soo taagantaha waxaan guulaysano ma leh bakhtiyaasataan maxaa sameeya war arrintan hadda inaan ka fikirna maahan waxaan ka fikirayaaba arrintan dilka sida lagu xalin lahaa waa ku wareerna hanti ariya ayaa ii warane amadan xoogaa ani cabsi miya hoohe suuriya ayaa ilaashinaya hadhowta suuriya aniga maxaan ugu jawaaba ii sheeg adigaan kula hadlayaa war unuga hadda waxaas inaan ku doodna maahan waxaan ka fikiraynaa arrintaas sidaa ku xalin lahayn ninkaas sidaa ma nagu dhaafahay waa inaan helnaa meeshuu joogo haddii kale unugoo meeshaa noogu imaanaya halo haa suuriyaa kuraamay aniga waan ku faham xaggee joogtaa adiga aabbaha ayaa naga fogaaday haddana adiga ayaa baxsada maxaa kuugu dhacayna waan ogaay waxaan samaynayo adiga qofkaad afduubata mataqaanaana baasabor amerikaan ayay wadataa halisna waad ku geli kartaa adiga suuriya waxyaaba aad samaynaysa ma ka fikirtana baasaboorka amerikaanka taas ka dayso Asaa ogaani meesha iska yahay ilaa aan ka ogaada dilaaga dilka aabeed ka dambeeyay aniga halkan lagama yaabo gabadhan inaan ka sii daayo waanan ogaan doonaa kale dhammaantiin maxaad ku soo raacdeen wasiir xildhibaan abuukaate iyo gobnatoore gobol dhammaantiinba waxaad ku soo raacdeen gabadhan darteed gabadhan qiimo weyn bay ku fadhidaa marka waxaa qasaba hawshan sababtaad ugu jirtaan inaan ogaado aniga dil haddii gabadhii dilaysid unug maha naga gela noo sheeg bal aniga taas waa ma naga gelin haddaba waqtiga halkaa nooga lumin baa kura hadal imaalayaan adeeroo kacaliye waxaan u baahana nasiya marka hore ma wareemi aabeed inuu badbaadabo aniga amuga horeba kawiyaba duqa oo aabbaheeda ay ninka kawiye aniga waa anaa ka dambeey waa qasacaday aabahe muxuu dembiyu geystana maxuu dambiya u geystay isbitaalow dhisay iskoodow dhisaa saldhigow dhisaa waxa dhan isugaa isku qoraya shalow maraykan ka yimid unuga xanaa marka hal bacaad loogu lisay kuwaasaad noola soo hormaraysa amyaa inaasaa dhaaftid ninkaan inaagtaan waa dilaynaa hal meelaan u diraynaa iska dhaaf aba ka cabsanin kow ii kurtuun anaaga shibdhe ana shaarba waaweyn lamadoodaba waa kawaya laakiin horta hashaan timaha rafrafka hallaan dilaa ka gadaal halkaan shaarbaha weyn laan dilaa intaanad ku fikirin kahor waxaad ka fikirtaa bulshada hindiya sidaad uga badbaadi lahayd adiga maskaxdaada inaad ka shaqaysiiso ayaa loo baahan yahay waad iska hunqaacday adigoon weliba waxba hubsan mudane facebook live aan ku jirnaa mujadido war iga dabaasha hor u soco
inaan tani dilaa waa khalad tan inaad samaysid looma baahno anaga sidee ku dayaa dadkan war haddii aan dadkan xabsiga geeyo wuxuu u noqonayaa hotel 5 star oo kale way ku raaxaysanayaan way cunayaan way cabayaan cid wax ka qaadaysa male ciqaab cid marsiinaysa male markiidaan ciqaab adiga suuriya inaad tan samaysid looma baahno anaga yaa dambiilayaal ku noqon karno mid ma la socotaa aniga aabbahay hal riyo laariyadaasna waxay ahayd anigoo CBI officer ah inuu arko laakiin muxuu arkaaba riyadiisi waxaa baabi'iyey dadkan cadowga ah ee manaxayaasha kuwan ma dhaafay aniga waan dilayaa kuwan waxay iga hor istaageen inaan sarkaal boolisa noqdo waxay ii diideen riyadaha aabba inaan rumeeyo aniga ma dhaafayo suuriya adiga isdeji riyadu aabbaha laha aniga ayaa garab kugu siinaya waana gaaraysaa waa ku baryayaa marka tan iska dhaaf tanaa samaynan wax walba aad jecesha aniga ayaa garab kugu siinaayo waan ku baryayaa isdeji oo keliya soo dhawaada horta dhammaantiina marka ugu horaysa waxaan idin leeyahay dadkan la soo xiri maanta in la xukumo waa xukunkoodana wax kale maa dil maahine weliba dil toogasho aan ka soo laabasho lahayn waana u qalmaan caddeen iyo markhaati iyo wax walba oo la keena maxkamadda horteeda maanta waxay caddaata kuwaan kow maahine kurtub in loo keeno qalinkan lagu jibiyo ayba noolaani yaana waa ugu mahad celinaynaa maadaama as maxkamadda iyo sharciga iyo dawladba as garab as siiyey mudana garsoore aniga waxaan u baahanahay hal su-aal inaan ku weydiiyo oo keliya codsi ayaa wataa aniga codsiga ay dambeeyo war haddii rabtid inta soo kor okay waa mahadsan tahay run ahaantii mudana garsoore aniga aad ayaan u faraxsanahay daama cadaaladda la hor keenay dilayaashii aniga aabbahay dilay maanta waxaan kaloo wataa hal codsi kaloo ah in qof la dalacsiiyo waxaan rabaa in hal qof la dalacsiiyo aniga waxaan rabaa brograam run ahaantii brograamkaasna aad ayaa looga heli doonaa waa adiga hadaad iibsaxis aniga waxaan u baahanahay meel walba in kaamira lagu xiro si dilalka ka dhacaya magaalada iyo waxyaabo walba looga ogaan karo teeda kale waxaan kaloon u baahanahay aniga inaan waxyaabo kaloo fara badan halkan aan ku sameeyo waa adiga haddaad ii fasaxayso waxaan u baahanahay aniga brograam run ahaantii aad looga helay inaan keena aniga gabartee maxkamad mashquulka dhaf warkii sheeg aniga waxaan u baahanahay inaan keeno wariyaasha tviyada dhammaantood ay ka wada heli doonaan brograamkaasoo ah brograam aad looga heli doono inaan keeno ayaan rabaa garsoore adiga keliya ayaana ii fasixi kara inaan barnaamijkaas sameeyo madaxweyne xildhibaano dhammaan baarlamaanka xeraalyaasha qaranka dhammaantiin waan idin wada salaamay run ahaantii aniga aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan hortiina soo istaago waxaan rabaa inaan shakhsiyaddeeda iskiinburo aniga waxaan ahay sanjinaha krishnaha barsaab siin run ahaantii aniga waxaan ahay titooreysa buuxda aabbahay krishnaha barsaab wuxuu jeclaa dalkiisa asaga wuxuu ku noolaa dalka maraykanka wuxuuna ahaa nin aad u wanaagsan bulshaweynta dalka maraykanka ku noolna run ahaantii aabbahay aad ayay u jeclaan laakiin si lama filaana dalka hindiya ayuu ugu soo wareegsaday arxanlaabiyaalna way dileen aabbahay aniga aabbahay riyadiisa wuxuu ahaa dalka hindiya inuu wax fara badan u qabto laakiin asaga si lama filaana ayaa lagu dilay aniga waxaan rabaa maanta inaan idinka codsado hal codsi oo keliya aniga waxaan u baahanahay aabbahay riyooyinkiisa inaan rumeeyo taasi laakiin waxaa garab igu sii karo waa idinka aniga waxaan rabaa wax weliba oo aabbahay jeclaa inaan aniga rumeeyo aabbahay asaga wuxuu jeclaa dalkiisa hindiya inuu mar walba hormariyo dadka masaakiintaana uu siiyo waxbarasho isbitaalona uu u furo xarumo booliisoo fara badanna uu u sameeyo laakiin gabadheeda adiga habeenkii habeen lu ahaanaa maalinna maalin wax isbeddel ma leh dalkan weligii sidaanu ahaanaa wax isbeddelah kama dhacayo haa gabadheedu wax isbeddela kama dhaca dalkan anaga saa ognahay asturaaliya marka hore iyada waxay aad dhul saxaraa haddana waa magaalo waad u jeedaan waxyaabaha ay leedahay khayraad fara badanna iyada way leedahay hindiyana sidaasoo kale way noqon kartaa iyada haddii ay dadkeeda laakiin sidaan u niyad jabsan yihiin wax isbeddel ay keeni karta ma lahan isbeddel walbana idinkoo keliya ayaa samayn kara aniga waxaan u baahanahay garab inaad siisaan oo keliya waxaan rabaa inaan dalkan hormariyo wax walbana idinkoo keliya ayaa garab igu siin karo mudanayaal iyo marweyn aniga waxaan u baahanahay arrintan inaan si xaqiiqa leh uga hadalno dhab ahaantii gabadhan waa inaan garab siinaa cadaaladda waa inaan soo saarnaa waxaa jira dad fara badan oo xaqooda aasan yahay waxaana qasaba qof walba inuu afka ka hadlo arrintan qof walba haddii uu ka hadlo waxaa dhacaysa in bulshadoo idin
ay isku calolfayobaato aniga dilyaashii aabbahay dili waa la soo qabtay laakiin weli aniga laygagama cadgoynin aniga waxaan u baahanahay wax walba oo dalkan ku horumari kara inaan sameey idinkoo keliya ayaa garab igu siin karo waxaan rabaa dhammaantiin inaad garab isiisaan oo dhinaceyga aad noqotaan aniga aabbahay riyadiisa waxaan u baahanahay inaan rumeeyo riyadiisana adinkoo keliya ayaa garab igu siin kara aniga qof kale oo garab igu siin karta haba yaraatee ma jirto aniga waxaan u baahanahay dalkan hindiya inaan horumariyo wax walbana garabka igu sii karta waa idinka aniga waxaan rabaa aabbahay inaan u argudo waxaan rabaa aabbahay xaqiisa inaan u soo dhiciyo aniga waxaan u baahanahay aabbahay wuu riyoodo waxaan u baahanahay riyadiisa inaan rumeeyo cidda riyadiisa ila rumayn kartana waa idinka oo keliya aniga waxaan rabaa aabbahay riyaduu ka tegay inaan rumeeyo aabbahay uu dhinta haddama noolo riyadiisa inaan aniga rumeeyo ayaan u baahanahay idinkoo keliya ayaa garab igu siin karo aniga waxaan u baahanahay suuryaana inuu garab isiiyo haddii aad idinka ii fasaxdaan waa qofka keliya oo aniga garabkii siin kara cadaaladda aabbahayna soo dhicin kara suuryaa waa qofka keliya hadda garabkiigu sii dilyaasha aabbahay in la soo qabto qof kastoo dembi galo in la dilo waayo marka in la dhigaalsado maahan baa la iska dilo hadduu wasiir yahay hadduu wax walba yahayba khalad buu galay hadda waa la dilayaa kow baa laga siinayaa cidduu doonaba ha noqdo sarkaal ba hadduu noqdo ilaa khaladka saa ku dhacay cimriga allah soo kuusan ku dhig kuwaas camal weligay ma arkin oo saas dad u ba'sahayaan qof walboo dembi ka gala dalkan waa in la dilaa maxaa yeelay dembi fara badan ayaa dalkan ka dhacaya mar walbana dadka xaqooda ayaa lagu tumanaya taasna macquul maahan hadda waxaa qasab ah dembiilaha in la toogto ma aha in wakti kale lagu dhumiyo hadda ha la toogto unugu harmaa ninkaas in usnaan gabigiisa la dilo maxkamadda shariifteeda waxaan jeceshahay dadkaas inay ugu qaajin joogasho waaba la hukumee hala dilo lee dhiman isiyo dila dheh dila waa walaalayaal aniga waxaan isleeyahay nimankaas lama dili karo waxyaabo fara badan baa nooga imaan kara haddii lagu fududaado ama dhib naaga imaada wax walba ayaa dhici kara ileeni arrintaas waa dad dawlad hadda warcaddan waxay ta timid hoontoon haa haltaasay ta socota hadda maxkamadda ayaa markii hore go'aan gaartay go'aankaasoo ahaa in dilta wegshaa lagu fuliyo dadkaasi balse ilaa iyo haatan waxaa laga dhowr sugayaa in lagu fulin doono in kale dadka ayaa ku kala qaybsamay fikirkan dadka qaar waxay aaminsan yihiin in la doogto halka dadka qaarna ay ka soo horjeedaan annaga waxaan wacad ku maraynaa annaga waxaan wacad ku maraynaa inaan sharciga u hoggaansanaan doonno inaan annaga sharciga u hoggaansanaan doono oo aan marnaba sharciga jebinayn wacad waxaan ku maraynaa dalkeenna iyo dadkeennaba inaan qayaano wacad waxaan ku maraynaa dalkeenna iyo dadkeenna inaan khiyaanayn waa ballan sharciga inaan marnaba qayaani doonin waa ballan inaan sharciga marnaba khiyaani doonin waxaa kaloo ballama wixii waddankeena dhibaato ku ah inaan dusha u dhiganno waxaa kaloo ballanna wixii waddankeena dhibaato ku ah inaan dusha u dhiganno waxaa kaloo ballama waddankeenna inaan hormari doono waxaa kaloo ballan inaan waddankeena hormari doono mas-uuliyad walbana ka soo bixi doono waan ku dhaaranaynaa adiga wiilkaada waxaad jeclaed gaashaanle oo keliya inuu noqdo balse mas-uuliyadka weyn ayuu dusha saartay wuxuu kaloo noqday nin dalkoo dhan maamulo ninkayga anigana aad ayaan u faraxsanaa maanta runaantii aniga aabbay aad ayaan ugu xiisaayaa haddaad doonaysid adugu inaad wax wanaagsan samaydo ma aha inaad labalabaysaa go'aan waxaad ku gaartaa inaad dhaqaaq samayso kadibna wax walba way kuu qurux badnaanayaan anigaa kuuri middaas haa si niyadoo keliya u samee isna deji okey duqdaanoo kaktiyo kaduuda tikii lagu dhimahay le sugaysa aniga lugtay lugta ii saartay laakiin ballan way toon ku dhigay mar dambe iidaa musqul gelin dadaan yeelihaaso wax kale ma ku dhimaysa maasaan meesha u dhigaa tadoo beri inay haarinaan tusaa meesha le ay fadhisa shibka dhe adiga duqdaan aadan la aadaha markay khalashay dhimayay hay suuriyaa ma joogaana suuriya ayaan u baahnaa waa mahadsan tahay
aniga adiga ku imaan naca wax walba lacagsanaysid iska fiiriya haye hal mare laabta ii geliya diyaar waay waa kan زي عمل للسكو هو يا مالين عديه للسكو هو يا كان ولمات مسكين كان إننا شمية لكن فرنت دي واي سك أنك دمي هذيك لو أنا دميسها هاي بس محجرة منوقي سدو نوق مجرى يا نسبها चल बस करना आई waa maxay waxaanu ciidana kuwaani waa sukuuradka iyo ciidamada qaaska ee marwada ilaalo u noqon doona maxaa keenay intanoo ciidan inay marwada ilaaliyaan sababtoo ah waxaa jira ciidamo kooban waxaanoo miisaaniyada maxaa lagu khasaaranayaa istaafkan maya looma baahna middaas keliya anigaaba ku filan mudan ammaanka aad ayuu xun yahay waa qasab in lagu ilaaliyo no way go'aankan markii aan hore u gaarayey kama aanan fikiraynin inaan keligay ahay inaan koox haysto intaba laakiin waxaan ku fikiray inaan aniga kalsooni nafteyda ku qaba maantana isla kalsoonida ayaan ku qabaa sababtoo ah istaafka faraha badan leh dhibaato ayaa ka imaan karta waana caqabadda ugu badanba kaal adeeg waxaana sukuurad adeeg maxaa ku fashaa sakuuradka haa sukuuradka aan ku weydiinay anaa kuu sheegahay eeyeyga waay unay daba socdaan leh u socdaabo haa sakuuradka haddii la waayo eeyahaan xaggee la sameeyaa kubaa eeyaa baana leedahay haatan baa kaa tegaynaa haddii eeyana anuka kaale idinkaa tegina maxaa jira ey mitihin bilaadanaa tihin kaale waa waca booliska u sheega hallo haa ciidanaa rabaa ani waa leega tegi haddii aad aragtaan qof halisa ama nafsadiina dhibaato ku ah looma baahno inaad labalabaysaan keliya hal mid ayaad samaynaysaan idinkoon boolis wicin cid kale u dacwoon anigoo qura ayaad soo wacaysaan waxaana wacad ku maraya isla qofkaas inaan arrintiisa xalin doono lama xerayo lama jajoobayo keliya ciqaabtiisa ayaa si toosa loo marsiinayaa isla goobtuu taagan ayaan ciqaabtiisa lagu marsiinaya waxaana idiin sheegayaa nambarkayga eber 647 walaal meesha maxaan uga noo sheegba shaqaan ila dirsaa shaqo yaa shaqa qabeesi horta waxaa ku weydiiyaa shaqada nooci waxaan gaadha maa lagu dhacaa moota maa lagu dhacaa mise bajaaja lagu dhacaa mise baskil waxa noo dalbaadan wax walba naga sameyna okay noo sheeg lahayd wax dhacoolay shaqadayna tahay wax kale ma qaban unuka ma fahmino haddii wax noo dirsatay ku dheh ka tarbiila xataa waa ku keenina ababa dilow haddee noqoto waa lagu dilahan ku dhahay meeqa qofaa la dilay mataqaanaa nus milyan dadaa iguma wixii rabtid noo sheeg waa kuu qabahaynaa unuka kufsa haddii naqatana unukaa joognaa gabadhkii rabtid sheeg anaa soo kufsaay dahab xaduu xitaa unuka aqaan noo sheeg leh mal imaan idinka shaqayaan ila dirsanaya shaqadaas ayaad qabanaysaan lacagtana waad qaadanaysaan wara cabduuli aan sheekada muu bogaya wara xumu aan sheekada muu bogin wax kale qorshe weyn lacag la keenaya see camal dhib kuweys maxaa beesadaas qaadayna saxiixno saas miya cabduuli maalmaan lacag meel mogtaan hadda saxiixa cabdul saarula qaanaan saxiix maqan ma maqan aniga maanta laga bilaabo dil kufsi dhacow kulli waa laga xarantiinumay wax aad samayn kartaa wa yaraatee ma jirto sabab maxaan samayn karin adiga nafsadaadoo dhan annaga ayaa gacanta naga saartay wax aad samayn kartama haddaan ku dilana cid noo haysatana ma lahan waan ku dili karnaa adiga meesha anigu waxaan u wacnaa niqyaantid miya wara waxa naga adag dambe cabduuli hadda waxa miira warqadaadi soo celi haddii kale waa idan cajiib aan ku dheh taada anaga mas'uulka kama hadli kartid haddii lagu dili xitaa cid noo qabsan karta ma lahan anaga waana ku dili karnaa tabarta may ku dile kufsina wax aad geysan kartaa hawa yaraatee ma lahan adiga adaan kaa bilaawa anagu taas ma yeelayna haddii kale wax kale ma joogteena ma yeelayna ma yeelayna saaxiibkeena u dhabi amalu kabi
isku day inaad hadalkayga fahantid ficil intaan wax kugu fahansiin lahaa inaad faaladayda fahanta ayaa ku habboon cunaka dukaanka xataa waa soo xirtay qof walba oo khalad galay ciqaabtiisuu maraya tan waa qayaano haddii awaani maba saxiixinaanba yaa ku weydiiyey middaas teeda kale adigii lacagta markaad qaadanayso waad qoslaysa soo maa hadda go'aankan markii laguu soo dejiyana waa kula xumaatay qof walba oo halkan jooga nafsadiisa annaga ayaa mas-uulka ah uma baahni in wax la dhaco uma baahni in wax la kufsado waxaan u baahanahay xog walba iyo information walba ina sida ugu dhaqsiyaha badan lagagu soo gudbiyo weliba 5 second gudahood qof walba qof kale ayaa mas-uulka ah qof walbana qof ayaa daba socda ninkii si wanaagsan u shaqaysan waaya wax ma dhicini mi maya hawshin waa dhammaysan okay haddaba dad yahow waa inaad waajibaadkiina gudataan hadalkaygna si fiican u fahma qof walba oo khalad gale ciqaabkiisa sidoo uu maraya ciidankaa la socodlooya waxaan ujeedaa qolo kotorbaan wado weliba kotorbaanka koola badan aa ku jira weliba naynaan waay naynaana subadna weliba darooga xataa waa la wadaa kaaliska arag markii la hadalana way diideen aniga waxaan ahay iska daa ayaan ku dhahay bela magaceegaaba beelaabo adi waxa waa ani adiga laakiin rinjiga ma keenaya sidaan u jarjaranayo soo ma jeedid kalarka waa kalarka hindiya sidaas ayaan ku jeclaaday maxaan saxiixa iyadaa inaan isku saxiixa rabaaba iyada dhan lamadaba isku darso idna saxiix kana saxiix okay waay markii hore 200 aan kula rabi laakiin hadda 500 oo kunan ku siiya qatar waay iid darteed la mo abobo kan baban waay nacla idinku soo anigu diidaya hantida dawladda inaad kala qaybsataan tag xayawaan iyo xayawaanka kala jira halkan maxaa ka dhacay ii sheeg bal anigoo maqlaaya ay rabaan hantida dawladda inay kala qaybsataan waa niman soo dhigta oo xaaraan cunayaala waxay cunaan oo keliya ayaa ka maqan wax kale ka maqan malan xayawaanadan xabsiga gey ayagaa ku fiican xabsigee ay sheerba weyne waxaad go-aan ku gaartay soo maa xoolaa dawladda inaad dhacdo soo soc filimkan waxaa lagu turjumay raja cable t v muqdisho waxaanad aragtaan waa falaashkan kamarada ayaa ku xihan kamaradana waxay duubaysaa wax walba oo khalad oo dhacay qof walba oo khalad gala ha noqdo wasiir ha noqdo ra-iisul wasaare ama ha noqdo madaxweyne ama ha noqdo xildhibaan ama barasaab cidduu doonaba ha noqdee waxaa waajib iga saaran yahay inaan ciqaabtiisa marsiiyo qof aan ka xishoonaya habeeraatee ma jiro xisbiguu doona ha ka tirsanaado xisbiguu doona ha noqdo qoladuu doona ha ka tirsanaado golaha wasiirada hadduu doono ha noqdo golaha baarlamaanka ha noqdo hadduu doono laakiin mid walba wuxuu ogaanayaa in ciqaab uu marayo haddii uu dable yahay haddii uu sarkaal yahay waa isku mid ma jiro digniin ma jirto xabsi sidoo kale maxkamad laysma geynayo ciqaab oo keliya ayaa laismarsiinayaa waa la isciqaabaya adiga aabbaha iyo aniga aabbahay waxay hayeen laba ruuxoo daacada dhammaan dawladda oo idinna indhaha ayay ka daawanayeen gacmahana way ka laabteen aniga mooye cid kaleoo dhaqdhaqaaq samaysaaba eraatee ma jirto kolley wax walba way cad yihiin annagana wuxuu waajib naga saaran yahan waalidiinteenna fariinteenna fareen taasoo ah inaan dalkeenna iyo dadkeenna daacad u noqono inaan fulino waa qasab qalbiyadooda ayaa ku qaboobaya wax walboon annaga samaynayna waxaan u samaynaynaa waajibaadka waalidiinteenna unaga gudanna dalkan waxaa ka jirta dhibaatooyin fara badan sida dil dhac boob iyo kufsi intooda fara badanna waxaa sameeya dadka dawladda xubnaha muhiimkaa ka haysta tuug walba oo aad qabataa wuxuu xiri la leeyahay wasiir walba wax khaldaana wuxuu xiri la leeyahay ra-iisul wasaare sidaas ayay isugu xirxirayiin ra-iisul wasaare walbaana wuxuu leeyahay gole xildhibaanaha kuwaasoo difaacaya markii mooshin ama dhibaato laga keeno laakiin annaga marnaba maahan inaan taas u joojino ama aan ka aamusno sarkaalkii khalad galaa ciqaabtiisaa la marsiinaya wasiirkii khalad galaa sidoo kale ciqaabtiisaa la marsiinaya xildhibaankii khalad galaana sidoo kale ciqaabtiisaa la marsiinaya shacabkii khalad galaana sidoo kale ciqaabtiisaa la marsiinaya ma jirto wax maxkamada ma jiro wax saldhiga sidoo kale waxaan jirin wax digniina qof aan u digayna ma lahan qof wax loo sheegaya malaha qof walba waa ogyahay sharcigai nidaamkeena dhowr qofkii ruux dumara ku xadgudbaa xaqiisaa la marsiinaya kaasoo ah inuu dhintaa qofkii wax dhacaa waxaa lagu qasbayaa in la garaaco ama ciqaabtiisa mid adag laga dhigo qofkii qof dilaa isna waa la dilayaa isla bartuu qofka ku dila ayaa lagu dilayaa sababtoo ah dilaagu marnaba dadka ma daynaya dhiigii cabayuu noqdo dadka haddii uu ku dhiig bartana dhibkiisu waa uu sii siyaadayaa annagana waxaa naga go'an inaan annaga shacabkeenna aan difaacno u taagnaanno hadafkeenna mowqifkayga oo ahaado inaan dalkayga dadkayga difaaco
adigana kolley taas tu lamida ayaan kaa filay dhammaantiin booliskiina waxaan idin farayaa qalad qofkaad ku qabataan inaanad u tixjixin ee waa in si toosa ciqaabtiisa loo marsiiyaa qofna kama oggolaanayno inuu xaqayga ku tunto qofna kama oggolaanayno inuu annaga na bahdilo sababtoo ah annaga waxaan nahay dad awood leh booliska waa awoodda shacabka uu ku tiirsan yahay haddii boolis uusan jirin shacabku nabadgelyo maysan heleen haddaba waa inaad muujisaan kartida iyo awoodda ay leeyihiin dharka aad xihantihiin ciddaad hadal ka dhegaysanaysaan ma jirto oon anigii ahayn qofkii aan amar siiyaana waxaa qasaba si toosa inuu fuliyo degmadaas oo kale kaale adiga ilaa in muddo ayaan ku raadinaya waxaanan ku baadigoobaya muddo aad u dheer maanta ugu dambayntii gacanta ayaan kugu dhigay ciqaabtaadana waan ku marsiinayaa khalad ayaad gashay waxaad geeridiisa ka dambaysay xubin aad iyo aad muhiim ugu ah waddanka hindiya adigana waxaad tahay nin duulaha ku ah dalweynaha indiya sidaas darteed waa inaan dhulka kugu daraa xaq uma lihid nolosha xaqna uma lihid inaad duniyadan dusheeda aad ka sii ceeshto baybay ayaa ku leedahay nabadgeli indiya ciddii khalad ka gashaa cise iyo karaamo agteeda kuma leh waxaa balana ciqaab inaan marsiiyo qof walba oo khalad naga galo feelasha keena haa mudan amarna sii dhammaan tuugadan annaga ayaan soo dilayna maxaad ku samaynaysaa ii sheeg bal waan dilaynaa dhammaantood oh waa si wanaagsan haddaba looma baahna dadkan in la ciqaabo in xabsi la geeyo in maxkamad la saaro intaba keliya waxaa loo baahan yahay bistooladda xabadaha ku jira in jirkooda lagu faarujiyo dibna inaad u laabalaabataan looma baahna taliya micnaaga hala dila miya tuugada markay annaga naga hor yimaadaan miyay noo naxan mise noo naxariistaan ii sheeg bal maxaa keenaya gacanta booliska inay dib u laabato maxaa keenaya gacanta booliska inay cabsi keento waa qasab go-aanka inaan annaga gaarno sababtoo ah marka ugu horraysaba xabadda annagaa isku dhigayna uninka qoryaan waxaana loo dhiibi markiin askarta soo galayna halkoo xabad xijaaba ku jirto weligii xabad ma gerinayn haddana askariyan aheel uu leeyahay waa nala soo weeraraa unugu leena la dhameeyaha qorya waa kana waa isku wadayna waxna maku adeegi karno dad maku dili karno dambiilaha maku qaban karno xabsiga maka celi karno wixii rab leen ugu sameyna maanta waa ku tuugayna qoryan noo fasax taliya wax qaldan baan ku hadlay hadalkii ugu saxnaa ayaad ku hadashay dambiile baan ahay anigu wax baan dilay hadda xukun in adeer ku cali dambi ma tuudahay bay cadeen ma leeyahay dambi aan gal waa kana cadeen ana wada dambi galna waxaan rabnaa qaabdidaa mudane dee anigu dil baan geystay hadda baan dad soo dilay waan dilayaa haddana halla xiro baan leenahay mudane waan ku salaam xeer ilaali sidee tahay siday wararka igu soo gaarayaan dambiilayaal fara badan ayaa maxkamadada soo buuxi dhaafinaya iyagoo intooda badan u baahan in la xukumo laakiin xukunka loo baahan yahay in la marsiiyo ma ahan midka maxkamadda ee waa midka bannaanka yaalla sababtoo ah maxkamadda haddii la geeyo mar walba oo xabsiga loo gudbiyo waxaa laga yaabaa inaan ciqaabtooda la marsiin sida hotel 5 star inay ku sugayiin oo kale ay iska raaxaystaan taasna annaga diyaar uma nihin waxaan rabnaa qofkii qalad kale in ciqaabtiisa la marsiiyo in sharciga la maro soo maaha sharci la'aanna wax dhaqan galaya ma jiraan sharciga wax walba waa in loo tiegsadaa marka isdeji okay waay waan idin salaam officers run ahaantii maalmahan waxaa la bartay in jaabadaha la buuxsado lacag fara badanna la qaato saasay tahayna waxaa waayadan dambe soo badanaya saraakiishiiba inay ka mid noqdaan dadka magaalada ugu taajirsan caddadda mushaharka ay qaataan markii 15 sano la isku dhuftana ma gaarta lacagta ay haystaan wax samee karnaa laakiin sharciga gacanta naga xiraya laakiin sharciga haddii gacanta noo furo wax walba hortaada keenina tuugada dhammaan waa soo qabaynaa qof walbana xabsigan dhigayna taas miyaad aaminsantihiin haddaba fasax ayaatiin shaqada ninka lama baahna inaad qabataan waad fasaxantihiin sababtoo ah askari cabsanaya ilama shaqayn kara aniga war anaga waxaan qasaa siyaasiyiinta haddaba mid sameeya siyaasiyiinta laftooda waa in la mashquuliyaa oo laga soo saara lacagaha madow iyo dahabiyada u xaraysan aysan iyaga xaqa u lahayn hantida dawladda ay xaraysteen ha laga soo saaro
dhaqsada barkadan biyaha laga saaro sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga waa uu isbedelay wakhtigai aniga ku soo beeray wax walba waa ay caddaadeen waxaa yaraaday dulmigii waxaa yaraaday musuqmaasuqii waxaa yaraaday dilkii faraha badnaa warkaal adiga ma waxaad ismoodaa hantida dowladda inay hooyadaa leedahay hadba meel markay aad ka dhiganaysa adiga sheeg bal taas ayaan ku weydiinaya teeda kale adiga lacagtaad isticmaashay xaaskaaga lacagta isticmaashay cunugaaga lacagtu isticmaal markii wada ahaan la isku daro mushaarkaaga 20 sano waxaad qaadan lahayd ayaad hal bil ku isticmaashaan sideeta taas suursagal ku tahay ii sheeg bal midaasaan ku weydiiyey xaggeese waxaasoo hantiya ka keentay haddii aanad isticmaalin xaqa dowladda ay leedahay waxaa jira wax badan oo ay dadka ogeyn balse aniga aan ogahay waxaan kaloon ogahay adiga in aad leedahay keedad fara badan oo lacagta ay kuga xaraysan yihiin balse waxaan u baahnay xaqiiqada dhabtaa inaad sheegto iyo meel walbay wax ku yaalaan akoonkaaga waxaa ku jirta lacagaan inaba caadi ahayn war caddeena loo baahan yahay caddeyn ma haysataa bistoolo haddii aad soo qaato wax walba inaa ogaanays may kula tahay ii sheeg bal taas miyaad u malaysay aniga inaan halkaan kugu imid aniga halkaan baryo umaanan iman waxaan u imid inaan xaqiiqada helo ama sheekadaada idil aan soo xidho jamtarkaaga inaan xidhana waxba iguma ahan way fududahay waxay ka tahay agteeda galaas biyaanu cabayoo kale haddaba dantaada aqoonso laba daran mid dooro inaad warqadda saxeexdo iyo inaad si daaragtiga kuu toogto wasiixa ken duli dalkiisa khiyaanay deysmadiisa waa igu dembi anigana kuma dayn karo waan ku dilayaa maanta waad dhimanaysaa lagama yaabo inaan nololkaaga sii tago maadiga haa waa aniga waxaan halkan u imid inaan kaa soo celiyey lacagaha xatooyada dowladda aad ka qaadatay ee hadda meel aad ku maalgelisay shirkadda kombiyuutarada waad ku maalgelisay sidoo kale bangiga dhexe lacag ayaa kugu jirta sidoo kale swiiska lacag ayaa kuu taalo waxaasoo hantiya xaggee ka yimaadeen maalgelinta ku baxday shirkaddaas kombiyuutar waxaa la sheegaa lacagta ugu badan in adiga kaa timid adigana mushaar ahaan marka lagu xisaabiyo 25 sano hadda dhiman lacagtaas ma goysid xitaa xaggeed ka keenta hantidaas ii sheeg bal midaasaan ku weydiinaya hantida inaa kuu sheeg miyaad doonaysaa caqligii aamus okay haddaba haddii aad madax adeegtay la dhima hantida waxaan kuu rajaynayaa wakhti wacan oo wanaagsan bay bay waad madax adeegtay waxaad ku madax adeegtay inaad sheegto lacagta dowladda laakiin fiiribal waad dhimatay faa'iido maxaad heshaa hantidii way ku dhaaftay dunidana way ku dhaaftay waxaad haysa labadaba ma laha laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan anigaa ku soo waxa weye wax walba dhag bay noqonayaan waa caynkaa waa hagaagaysaa hawlweyn alo haa tali waxaan rabaa soo hadal arrin muhiim inaan kuu sheego banki swiiska ayaan rabaa inaan lacag ka soo wareejiyo oo bankiga dhexe aan ku soo shubo marka kombyuutar ayaan ku samaynayaa online weliba ayaan ku samaynayaa waxaan rabaa inaad la socoto barnaamijkaas wixii garabana aad naga siisa adiga oo kolley talo iyo tusaale ku saabsan arrintaasna sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ku soo gebagabeeyo ayaan u baahanahay tali arrintaas waa inaad la socotaa oo الدنيا رخيص وي
dambeyntii lacagihii dowladda ka maqnayd ayaa suuriya dib ugu soo celiyay bankiga kadib siyaasiyiin markii ay luunsadeen run ahaantii haddana lacagtaas bankiga ayay ku jirtaa dowladdana gacanta ayay ku dhigtay wayna la wareegtay si taxadar la ii dhegaysta annaga balan ayaan qaadnay balanta aan qaadnana waxay ahayd xaqa dadka in aanan la dhicin waxaan ku dhaarana waddankayaga inaan wax walba u hori doonno qof walba si walba u qaato waan ka soo celin doonnaa hanti dowladeedna ma ogolaanayna shakhsi tagrifalo ama si maalaayacni u qaata taasna mid dhacaysa maa intaan annaga noolnahay waanan ka soo celinaynaa intaasoo keliya ayaan isku ognahay walaak saamaca bayne ayaa sheegna walaak aad marwa maxay shab mar walba sidan muxuu ugu dhaqmaa isaga horta markii maxkamaddana ma ogeeno markii maxkamadda la soo baxay ilaa saan isku bedeli ayaa awqaad waddaan ku bixin karna meesha waan helay wadda fudud isdejiya adinka goorro waa bixaysan ahey iga habartay bannaankan xiisa u qaba waana baxaa goordho rajadayaa rumowda waa socdaahe iga habartay suuriyaan aqaan waa mugu horeba aniga baadila laygu haysta maa mugu laygu soo xiraa dulmiyaa laygu haysta aniga xabadan haleeya ma jirin dowladdana xabadka ma halayn dulmi waay wax walba way iska caddiin dadaasa ka dambeeya hawshaan laakiin hadda nasiibkaa wanaagsanaad waxaanan rajayaha maan sida u dhaqsiyaha badan inaan ka baxo dulmiyaa laygu wadaa walaalka mar dhow wuu ka soo baxayaa meeshaas adinkana waxaa laga baahan yahay qallaase inaad ka abuurtaan magaaladoo idin aniga waxaan u baahanahay magaaladoo idin in la gubo mudaaharaadna laga abuuro si dowladda arrintaas ay ugu mashquusho asa suuriya asaa imaantay asaasa gubeyna haddii lasaasoo dee waayo anuka asaa gubeyna ken batrol asa xaggee ii wadda maxaad samaynaysaa iidaa wiilka ii sii daa wiilka waa ku baryaa kaale midna qalalaasaad igu soo diraysaa midka kalena garabkaaga ayuu taagnaanaya soo maa labadoodaba waxaad u soo wadatay inay foodii buuq meeshan ay ka sameeyaan wax walba aabbinaya idiin hogaaminaya haddana saasay tahay isaga ayaa baqaya warkaale adiga carruurtaada haddii aad u baqayso maxaad carruurtaada waddada ugu soo diraysaa kuwaagaa midilaya sugbal waa ku baryaa mudane ma aragtaan siduu carruurtiisa ugu naxayo idinka ayaan ina soo hormarinaya waxaan igala dhigayaa gaashaan dabadeeta waa iska soo dabagelaysaan dhibaatana idinka ay idinku dhacaysaa bal maanta wejigiisa dhabtaa arka waad soo raacdeen laakiin ma doonaya carruurtiisa inay dhibaato soo gaarto ee waxa uu rabaa inuu idinka idinku difaactamo oo keliya dhibka idinka gaaro dowladda idinka inaad iska hor timaadaan qallaaso walba oo dhacayna waxa uu rabaa idinkoo keliya inuu dusheeda ka saaro caqligiina ha shaqeeyo kolley walaalkaan taageersanaa usugaan taageersanaa cawi maan usaan taageeraynaa naga wareeg calooshuu shaqaysta walaal suuriya يسوق النصيبة من النصيب تهبري بالبادي من العرف لا واسي عيشة من هيك هلانا هي يقرسي بهواي نسيم نس عروسي عشرة وهيك هوا يدعى تيجا وبرتي أدون كان وحكوسي الله afartii eedaysane ee lagu soo eedeeyey dilkii krishna ayaa mid ka mida uu badbaaday kadib markii afartoodii saddex ka mida la daldalay midkii afraadna uu daldalaadda ku dhiman waayo uu badbaaday
sidaas awgeed maxkamadda way iska sii daysay waana la fasaxay. ay adduunyada waa iska saas nimaa dhimasho loo balamaa dhima maa ninaa nolol la rabaa waa iska dhimaa anigana waa karaa waa badbaadaaday badbaadsi xariifkaygigaa tahay ahey laabtaygii alaw milyanaad qaadahe xarigaan qofka haddii loo jilciyo tartiib mau dhimahaayo haddii laakiin uu adkeeya waa dhimahaa marka xarigga maku adkeeyhaayo waa u tartiibihaa siis usi asku dhimanin ay beesada qaadee bogayaa iska baxa lacagtaada waa hayse qatarata ii taaga adiga aakhira agteeda iga soo celisha anna aakhiradean kuu dira sababtoo ah aniga adduunkan inaan kusii ciisaan raba adig minaad nooshaana caddaynaad igu taha aniga waa salaamantihiin waxawaaye waa soo laabta aniga ay dembiga waa ka soo toobi waa iska dhaafay markaa in lay cafiyo waay ninka dhimashaada uu ka badbaado waa laga leexda halayidhi dembigiina ciqaabtiisa waa soo maray qofka waa laga yaabaa jismi ahaantiisa inuu isbedelo laakiin dabeecadiisa marnaba isma bedelayso adigana sidaasoo kale ayaa tahay dabeecadaada isma bedelayso aniga waxay la tahay qaabka adiga dhimashada aad uga badbaaday inay tahay qaab khiyaano leh ahay waa saxan tahay horta anigu shabeel si fudud in lagu ugaarsado waa adag tahay maxaa yeelay geedafuulka xataa waa yaqaana anigana shabeelana waxaad rabtiin cunug saqiir camal inaad ugaarsataan qoorta iyo cajiimaysaan habarteeday ka tahay aniga tartiib laygu dili ma karo aniga dad badanaan soofiha qaar badanaan layaha laakiin hadda suuriyaha minaad rabto inaad aniga ga badbaado ciyaarta waa kuu seeta dheerayaha ciyaarta aniga iyo adigay noo dhexaysaa waxaana kaa rabaa inaad adiga waddadaada raacdo minaadtayda ku soo lifaaqatana waa noo mar kale eyga sidiisaba marka uu waasho marnaba suurtagal maaha bulshada in lagu dhex daayo waxaa qasab in bulshada laga dhex saaro midkanna waa u waashay waa qasab in bulshada dhexdeeda lagu dilaa taasna waa waajib saaran aniga waanan dilayaa wax walbaba haygu qaadatay waxaa waajib iga saaran yahay noloshiisa inaan soo afjaro neerbu waxaa ku weydiiyaa os qorshahayga labaad nasiya ii sheego aan ogaanay annaga waxaa qasab noo ah inaan hadda jawigeena dejino sababtoo ah annaga sharci ahaan wax kuma qaban karna waa inaan wax kala raadina oo keliya anaga waxaa qasab nugaa wax walba inaan si degan ugu fikirno oo aragtiyada dhaadheer aan adeegsano markaas wax walba way noo hagaagayaan igana waxaa qasab nugu aragtiyada dhaadheer inaan adeegsano markaas sidaan rabnaa ayaa wax u qabsan karnaa looma baahna nidaamka hore iyo sistamka hore inaan raacno sababtoo ah sistamka hore waa mid duuga gebi ahaantiisba aniga kama helin maxaa yeelay booliska burcadda ayay ka cabsanaysaa burcadda booliska kama cabsanayso booliska sharci ayaa qabanaya base burcadda sharci aan ahayn in maxkamad la saara kadibna xabsi la geeyo oo kale maba jiraba ninka booliska waa la tooganaya balse saasay tahay ninka burcadka ninka booliska ma toogan karo uma baahni aniga sharcigaas hore waddadaasi waan iska leexiyey sababtoo ah waxaan rabaa midka hadda cusub inaan isticmaalo qofkii dembi gala isla wakhtigaas ayaa la ciqaabaya iyadoon maxkamadii saldhig lala sharcigeena waa mid curduna waxaan u baahanahay qof walba inuu faafiyo si dadka horena ay ugu wada qancaan markaas annaga wax walba way noo hagaagayaan sidaan rabnana wax waan u qabsan karnaa annaga teeda kale waxaa qasaba hal mid inaad fahantaan middaasoo ah inaan annaga xuquuqdeenna ilaalino sababtoo ah haddii annaga xuquuqdeenna aan ilaalino xuquuqda shacabkana waan ilaalin karnaa annaga haddii nagula soo xadgudbo maahan inaan gacmaha isa saaran ee waxaa qasaba inaan tuugada baabi'inno lagu sii qaadiya doorasha waxba ka qabanayn maxaad noogu dirtaa daya doorashada maxaad ka gashaa waa horta adiga xabsaya ku jirta see camal see doorasho laga aqbala ma laga yeela unak maan daaliye yaa kaa yeelaa walaalkay hadda xabsi ka soo baxday yaa ku dooraa ad tee kan lacagta waa bixisi aryaha idinka jaqjaqaad maha ku weysi taladan muku horo anaa lahay haddana anaa talaay wax isbedelo male shala xabsiga anaa gara birigana anaa ka soo baxay wax walbana saa u rabay u dhacayaan teeda kale ninka hawshaan igu soo filaaqiya anaa aqaal sidaas kaga qabaan idinkana waxaan idinka rabaa hawsha intaan idinka dirsado keliya inaad qabataan ahlo ay waxa waaye suuriyaha inaan la kulmaan u baahanahay minow ila kulmi waaye ma tahay hawdiisaan kacaa been kuu sheegi maa way isla hoogayseen
waxaan rabaa arrin muhiima inaan ka wada hadalno aan isku nimaano suuriya anigii soo raac filimkan waxaa lagu turjumay raja cable t v muqdisho suuriya aniga waxaan halkan kuu keenay ninkan 9 bool ka furan waxaan rabaa inaad wax fahansiiso asaga wax uu fahmaayo ma lahan aniga waxaan rabaa 10 la miiloobaana inaad u dhigta adiga wax walbana siday yihiin aad ugu sheegta adiga la hadal ma og tahay adiga inay halis hareeraha ku hagaaman tahay teeda kale aniga godkayga ayaad ku jirtaa ilaa iyo haddana meel aad ka aadi kartaa haba yaraatee ma jirto kalex wax walba runta waa la ogaaday hadda runtana ninkan iyo gabadhanba aniga ayaa u sheegay aniga wax walba way ogyihiin adiga sharcigaa ku xadgudubtay xabsigana si qayaano leh ayaa kaga soo baxsatay lacagaa ku soo baxsatay sharcigu wuu og yahay qof kastana wuu og yahay wax in akhriso looma baahno ninkan hadda intay ka gelaysa anigaa sheegay runtina kuu sheega anigaa rabo wax walba iga duuxisa haddii hal mar le runta waa caddeena ninkaas waa dilaa wax walba wuu ku ciyaara kaamirada soo qabo hadal mudane ninkaas khayaano ayuu xabsiga kaga soo baxsaday ninkii oo markaasi wax daldalaya ayaa lacag fara badan la siiyey 2 milyanaa la siiyey 2 milyan ayuu banaanku joogaa ninkan aniga u sheegay ninkan dambiile waay waa dhammaysatay wale maaha haddaan ku buusbuusin sida niman ayaanta dhow buusbuusi rabo annagoo idil waxaannu ku wada heshiinay qofkii khalad naga galaa inaannu ciqaabno soo sax maan qof walbana wuxuu raalli ka yahay in la ciqaabo qofkii khalad gala ha noqda ra'iisul wasaare ha noqda wasiir ha noqda xildhibaan cidduu doonaba ha noqdee waxaan dhammaanteen isku wada afgarannay inaan ciqaabno ninkanna waddadii ayuu marayaa yaa ka soo hor jeeda waddadaas ii sheega bal yaa diiddan oo aan oggolayn inaan ciqaabtaas marsiinno yaase raalli ka ahayn middaas ayaan u baahanahay inaan ogaado maxaa yeele qof walboo idinka mid a khalad ayuu idinka galay anigoo keliya khalad idinmuu gelin shacabkoo idin ayuu khalad ka galay waddankoo idin ayuu khalad ka galay sharciga ayuu khiyaanay waxuu kaloo khiyaanay maxkamadda diyaar soo uma tihin inaad ciqaabtaan soo diyaar uma tihidiin inaad marsiisaan xukunkiisa dhammaantiin xaq ayuu idinka wada galay qof walba waxa uu moodaa inuu ka baxsan karo sharciga misena uu ka awood badan yahay laakiin qof walba maalin ayay tiisu timaadaa maalintaas waxay noqonaysaa maalintii ugu dambaysay maalintii ugu dambaysay uu dembi galo maalintii ugu dambaysay uu khalad galo waxay kale noqonaysaa maalintii ugu dambaysay uu sharciga gacantiisa ka baxsado hore sharciga waxa uu ahaa mid gacmihiisu gaagaaban yihin sidoo kalena indhaha ka xidhan balse wakhti xaadirkan sharciga laftiisa abdheed ayaan ku samaynay hadda gacmihiisu waa ay dhaadheer yihiin barta ugu fog ayay gaarayaan indhuhuna mar keliya haddii ay ku soo libiqsadaan way ku qabanayaan ogaada qofna lagama oggolaanayo inuu xaq ka galo sharciga ama bulshada misena bulshadaas weliba uu ku sii dhex jiro siduu doonana uu dhaqmo maxaa yeele annaga waxaan diyaar u nahay inaan ka hargudno haddii uu ahaan lahaa sarkaal iyo haddii uu ahaan lahaa wasiir cidna lagama oggolaanayo
maanta ninkan ayaa ciqaabtiisa la marsiinayaa berina waxaa ku xiga ninka kale khalad gala armaya armaya aboomaya armaya ciqaabtiisa waa uu maray qof walbana sidan oo kale ayuu ciqaabtiisa u marayaa haddii uu khalad naga galo qof hindiya ma ogolaanayo in hal daqiiqa xitaa qalad laga galo